kulan maanta Muqdisho ay isugu yimaadeen xildhibaanada garabka taageersan Madoobe Nuno Maxamed ayaa waxa lagu magacaabay guddiga dib u habeynta baarlamaanka Soomaaliya. Madoobe Nuno Maxamed oo xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay u doorteen inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka oo kulankan shir gudoominayay ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka ay go'aan u gaaray kaasi oo ahaa in mudanayaasha ay magacaabaan guddi ka shaqeeya doorashada dalka isla markaana ay dhawaan qabanayaan doorashadaasi. Xukuumadda imaan doonta baarlamaankan ayuu dooranaya saadogsantiin go'aan buu gaaray baarlamaanka wuxuu ilaamiyay in doorasho madaxweyne ay dhacdo go'aankaas uu taagan yahay wuuna jiraa wuuna soconayaa guddi doorasho la magacaabay wuxuu ka howlayaan howlihiisa sugaynaa in maartii uu wajaho shaqadii loo xilsaaray ama loo idmaday waxa laga maarmaan ah baarlamaan sida go'aanka baarlamaanku uu ahaa la reform gareeyay waa inuu doortaa madaxweynaha daradeed hawsha reformka waa la soo dejinayaa waa gebagabo waa guddi farsamo guddigan sanadkii tagay ilaa maanta loo fadhiyay kulanka mudanayaasha baarlamaanka maanta ay yeesheen ayaa waxa uu ahaa mid ka dhacay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kaasoo ugu dambeyn ku soo gabagaboobay sidii loogu talagalay.